Waxaa jira awoodo badan oo Rabbi kugu manaystay si aad uga duwanaato noolaha kale. Waxaa ka mid ah garaadka, da'da, nasiibka, baaraandegga iyo kasmada. Magacaygu waa Axmed Yaasiin, halkanina waa kanaalka Guusha i tus. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Awoodaha badan ee Rabbi kugu manaystay si guud iyo si gaaraba, si aad uga duwanaato noolayaasha kale. Intaasoo dhan adiga ayay gaar ku yihiin. Ma jirto cid kale oo kula wadaagta garaadkaaga, ma jiro qof kale oo kula wadaaga da'da, ma jirto cid kale oo kula wadaagta nasiibkaaga. Si kastaba, waxaad ku riyoonaysa waxaad rabto inaad noqoto, waxaad ku riyoonaysa waxaad rabto inaad samayso, waxaad ku riyoonaysa waxaad rabto inaad hesho. Isku soo wada duub. Si aad u ogaato yoolkaaga, waa in aad maskaxdaada ku haysaa muuqaallo muujinaya hadafka noloshaada. Markaas ayuu yoolkaagu noqon doonaa mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee aad ku gaari karto guusha. 3 weydiimood: maxaan u baahanahay? Waa maxay faa'iidooyinka aan ka heli karo haddii aan xaqiijiyo yoolkayga? Maxaa igu dhici kara haddii aan gaari waayo? Markaad garato waxa yoolkaagu yahay, waxa kuu habboon inaad qorto, waayo qoristu waxay kaa caawin doontaa inaad isha ku hayso. Garashada yoolkaaga waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay barta ay ka bilaabmato guushu. Sidaas daraaddeed, mar walba yoolkaagu ha ahaado inaad gaadho dayaxa. Haddii aad gaari weydo, waxaan kuu rajaynayaa inaad gaadho meel dhexe sida daruuraha. Si kastaba, qof walba oo inaga mida waxa uu leeyahay ujeedooyin dhanka nolosha ah. Ujeedooyinkaas qof kulama wadaago. Markaas adigu garo yoolka noloshaada, kadib isku day inaad ka sal gaadho. Ugu dambeyntii daawade, waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka fahantay maqaalkan yar ee kooban ee ka warramaya garashada yoolka. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad halkan soo booqato, fadlan subscribe saar, siina gaarsii saaxiibada. Wabillaahi tawfiiq.